السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal dhammaantood idin salaamaya. Maanta waxaan joogaa meel dhaqtarahan joogaa oo saas bay loogu jiro. Dhakhtarkaasaan joogaa maanta. dadka ma sawiraayo meeshaan sawiraayo. idankiisa maanta dhakhtarkaasaan joogaa. ilmaha iga xanuunsano ilkaha laga sameynayaa meeshaan qorfadaan weeye doctorkii. Marka maanta waxaan rabaa inaan idin tuso. hoos bay ahayd markii hore markiiba kor baan soo fuulay. waxaa weeye waa dhakhtarada meeshaan rabaa inaan saaka idin tuso maanta haddii alla yiraahdo. dhakhtarkoodaan rabaa maanta inaan idin tuso. wallaahi fail baa lagu jiraa. waxaa lagu kala ilaa iyo waxa la kala dambeeyaa qofkiiba hal sentimitir baa la kala dambeeyaa. sababtay tacalaashaan waa qoftaan gabadhaan oo neeriska baan sugaynaa. inta qof baa ku jira waxaa laga yaabaa inaan galno qorfada. marka waa kaas waxaa weeye maalinba qorfadaan rabaa inaan galno meeshaan qorfadaan baan rabnaa inaan galno. doctorkii ku jiraa ilmahan ilkaha ka samaysanayaa. marka waa taas insha Allah galabta waad fiirsan doontaan meeshaan dhaqtaradeeda. meeshaan dhaqtaray leedahay. hadda mustabshahan aan joogno Lahli baa la yiraahdaa. waa fiican yahay dhaqtarkooda waa fiican. waa kan dhaqtarka soo baxay. marka waa kaas insha Allah bismillah. waa idin soo qorfadii u furay. taa qorfadii ilkaha weeye soo ma aragtaan. طيب ولا dhakhtarkii baan joognaa. waa aragtaan wala dhakhtarkii baan joognaa. waxaa weeye waa ilkuhu waxaa weeye wax ka dhib badan. ilmuhuna waxaa weeye waa ay necab yihiin dhakhtarka. dhakhtarka ilmuhu necab yihiin kulligood. qofaan ilkuhu jajabnayn laguma arko. qof walba wuxuu ku leeyahay dhakhtarkaan ka baqayaa, soo saaridaan ka baqayaa, hagaajintaan ka baqayaa. waxaasay ku leeyihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala hana kala xijaab annaga iyo dhakhtarka iyo annaga Allah hana kala xijaab. waa ilmuhu way ka baqaan mar walba oo waxay yiraahdaan dhakhtarku waa dhib. ilkaha iyo waxa la sameeyay. marka ilaahay naga xijaabo sharkooda insha Allah. naga inta islaam caafimaad baan alla weydiisan. ilaahay marka walaalayaal Allah naga badbaadiyo. ilaahay naga badbaadiyo naga inta islaam insha Allah. Allah naga badbaadiyo meel walba saas oo kala gabdhaha fadhiyo soo ma aragtaa. meel walba gabdhaha fadhiya. hadda gabdhaha loo dhiibay. awal gabdhuhu guryaha igu jiri jireen. hadda si banaanka u soo saareen. waxaa la yiri gabdhaha shaqeeye meel walba oo maktaba iyo meel walba waxay ka dhigeen gabdhay ka dhigeen. awal gabdhuhu guryaha igu jiri jireen ma shaqayn jirin. mid macallimad noqota anigu ma sheegino ilaahay uu yasiro. laakiin kulli inta kale guryaha igu jiri jireen. hadda se maktab walba ama dawlad ha noqoto ama kuwa baabuurta ha noqoto ama kuwa ciidamada caadiga ha noqoto ama dhakhtarada ha noqoto ama kulli shay hadda gabdhihii baa la wada fariisiyey. yaa ilaahay kuwan gabdhihii nur buu dumarkoodii u soo diray. sababtay taas hadda maxaa looga dhigay albaab walba iyagii baa la fariisiyey. ilaahay baa u soo diray. awal waxaa weeye hadday guriga hooyadeeda aadayso waa inay ninka fasax ka qaadataa. hadda waxaa weeye hadday aadayso adduunyada dabadeeda diyaarad raacaysa iyadaa fasax iska qaadanaysa. iyada looma dhaxeeyo. ma jirinin awal. naagta awal ilmaha markii ay dhasho 8 ilmood 9 ilmood 10 ilmood ama 5 ilmood oo yar oo midka ugu weyn oo 5 jir yahay ayaa ninku qaadan jiray. ninku bahdili jiray caruurta baabiin jiray mid qaar islaam oo ummadda Maxamed waa jiraan. hadda naagta la siiyaa.
naagta ilmaha la siiyaa oo lagu biilaa. marka maalin walba heer bay taagantahay. ilaahay subxaana wa tacaala ha noo dambi dhaafo annaga intii waalidkayaba insha allah biidnillaah. aabbaha iyo hooyadu awal hadday ilmaha isla haysan waayaan ninka la siin jiray, xataa hadda caawo dhasho dhakhtarka ay ku jirto intii laga soo qaada aabbaha qaadan jiray, laakiin hadda hooyadaa la siiyaa oo lagu biilaa. marka waa sidaa weeye. ilaahay wixii sharo shaydaanku madaxyaha allahayna ka xijaabo. maalin walba waxbay keenaan, maalin walba waxbay bedelaan. marka sidii roon ilaahay baa oga. ilaahay haynoo gargaara. wallaahi waagi horena nicmay ahaydoo naaguhu guryahooda ku jireen oo nimanka wax walba qaban jireen. naaguhu xoogaa waa mucagadiin, meelaha ay dumaradu joogaan wax ka macagadsan marra waa dhib miiran oo waa ahay dhib miiran ku taha. waxay rabtaa nafsi, waxay rabtaa sida ay muxuu ahayta arrinku u yahay inay u fulisay rabtaa. ninku wuu iska sahlan jiray, orod warqadu kuu saxiixaya, orod iska qaadi ku leeyahay. laakiin naaguhu ilaa iyo wax saxa waxaan hayn ku siinmayaan lagama yaqaano. muxuu hayto war qofkan u sahal iyo waa qof muxuu hayto xanuunsan iyo qofkan waa uma istaagnaan karo, waa tacbaani, waxaasoo dhan ma yaalaan. calaaduul waxa weeye waa muxuu hayto arrintaan saas maaha saama sida warqadan ku taalo oo amarku yahay waxaan hayn kaa yeelin. marka ilaahay taariikhdayada ha wanaajiyo. nimankuse waxa weeye wax badan inay sahlaan baa laga yaabaa. yiraahdaanin meeshaad nin ugu tagtid waxaa laga yaabaa wixii oo iska waxaagiyo in wax ka dhiman yihiin laga yaabaa inuu ku siiyo ku yiraahdo yaa qay iska qaada ma soo noqon kartid orda waxaaga samaysa. laakiin naaguhu waxaa ma yeelaan. laasin wixii waa inay siday tahay aad ku martaa. haddii kale meeshaadaad fadhiyaysa allaan ku dhaarta, qobtaadaad haddii kale fadhiyaysa. waxaas uma maraan qolyahan, arrintooda waa dhagdhag. marka ilaahay subxaana wa tacaala ha noo dambi dhaafo walaalayaal dhammaantiinba. waxaan rabaa inaan idinla qaybsado maalin walba si ayaan heerkan joogno insha allah, inaan idinla qaybsadaan rabaa biidnillaah, oo idinkaga sheekeeyo oo idin tusaan rabaa meeshaan joogo, waddankaanan joogno inaad nala aragtaan. dad badan baa waxay yiraahdaan inaan waddankaas ogaano aragno baan rabi lahayn. marka inaan mar walba aragtaan oo ka warqabtaan baan rabaa insha allah biidnillaah. kan waa garanaysaanba ilata meeshaan waa meesha dhiigga lagu qaado. meeshaan dhiiggaa lagu qaado. meeshaan dhan waad garanaysaanba ilata. meeshaana waxaan u fadhinaa inaanu daawadii qaadano insha allah. inaan daawada qaadana meeshaan u fadhino. kuraastan waa aragtaa, midna waa la fadhiisan karaa.